السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. waan ku salaamayaa daawada meel walba aad dunidan ka joogto. Halkan waa Elias Online. barnaamijkeena maanta aan waxyaabaha aan kusoo qaadan doono waxaa ka mid noqon doona shirkii ka dhacay amba lagu soo gabagabeeyey wadankaasi Russia ee u dhaxeeyay qaaradda Afrika iyo wadanka Ruushka. barnaamijka guud ahaanba waxa uu ku saabsan yahay shirkaasi iyo madaxweynaha Soomaaliya oo khudbad ka jeediyay shirkaasi wixii ka soo baxay iyo qodobada ugu muhiimsan. macluumaadka guud ahaan waxa aan barnaamijka diiradda ku saari doonaa shirkaasi ka dhacay maadaama Soomaaliya uu wafdigu u hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya oo halkaasi khudbad ka jeediyay. waa 24 bisha 10aad 2019 goor sheegtada geeska Afrikan waxa ay sheegaysaa 5:12 daqiiqo. ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkeeni. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay kulan la qaatay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. shirkan oo arag ah ayaa soo dhaweynta madaxweynaha Ruushka Putin u sameeyay madaxda Afrika ka socda oo ka qayb galaya shirka madasha iskaashiga ee Afrika iyo Ruushka ee ka socda magaalada Sochi ee Jamhuuriyadda Russia. madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale xalay ka qayb galay casho sharaf uu ku maamusay madaxweynaha Ruushka dhammaan madaxdii ka qayb gashay shirka madasha iskaashiga Ruushka iyo Afrika. Ruushka ayaa ku dhawaaqay in uu ka cafiyay qaaradda Afrika deentii uu ku lahaa tan oo soo jiitamaysay muddo dheer. tani ayaa u furaysaa jid cusub, xiriir qoto dheer oo iskaashi uu Ruushka la yeesho qaaradda dihan ee Afrika. haddaba khudbada uu ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo faahfaahinteeda ayaan guda gali doonaa. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyey shir madaxeedka Ruushka iyo Afrika ayaa soo bandhigay fursadaha iskaashi iyo maalgashi ee haatan horyaala labada dhinac. madaxweynaha ayaa si qoto dheer uga hadlay muhiimadda iskaashiga Afrika iyo Ruushka oo uu sheegay in uu yahay mid labada dhinac faa'iido u leh. madaxweyne Farmaajo oo khudbadiisa sii wato oo xusay tiirarka ay tahay in uu ku saleysnaado xiriir kasta oo iskaashi ah oo qaaradda Afrika ay la yeelanayso dalalka caalamka, ayuu yidhi madaxweyne Farmaajo. halka aad nagala socotaan waa Elias Online. shirweynaha ka socda magaalada Sochi ee wadankaasi Ruushka ayaa lagu martiqaaday ugu yaraan 52 dowladood ee ka socda qaaradda Afrika. madaxda halka isugu timid ayaa guud ahaanba dal walba waxa uu sitay amba uu soo hordhigay fursadaha ka banaan dalkiisa. wadamada ka qayb galay shirkaasi ayaa guud ahaan ay isugu jireen madaxweynayaal, ra'iisul wasaareyaal iyo wakiilo ka kala socday dowladaha qaaradda Afrika. shirgudoonka maanta waxa uu ahaa madaxweynaha wadankaasi Masaarida Cabdifataax al-Sisi oo dhinac fadhiyay madaxweynaha wadankaasi Ruushka ayaa shirgudoominayay. waxaana ay qaaradda Afrika loo soo bandhigay in Ruushka uu ku soo dhaweynayo qaaradda Afrika. qodobada ugu muhiimsanaana waxaa ka mid ahaa iskaashiga dhinaca ganacsiga, militariga, amniga iyo mashaariicda kala duwan ee shirkadaha wadanka Ruushka ay ka fulinayaan mustaqbalka dhow qaaradda Afrika.
shirweynaha ka socda magaalada Sochi waa fursad dhab ah oo dib loogu eegi karo laguna sii horumarin karo cilaaqaadka taariikhi ah ee ay Afrika la leedahay Ruushka, iyadoo loo marayo iskaashi iyo wada shaqeyn si loo gaaro horumar iyo barwaaqo loo dhan yahay, ayuu madaxweyne Farmaajo khudbadiisa ku sheegay. Madaxweynaha ayaa dul istaagay xiriirka taariikhi ah ee Soomaaliya iyo Ruushka, mashaariicdii iskaashi iyo maalgashi ee labada geesoodka ahaa, iyo sida ay uga go'an tahay dowladda federaalka Soomaaliya dib u soo nooleyntii xiriirka ka dhexeeyay wadamadii la isku oran jiray dalweynihii midowga Sofiyeeti xilligii burburka ka hor 1991. Soomaaliya waxay doonaysaa in ay xoojiso xiriirka laba geesoodka ah ee ay la leedahay Ruushka iyo inay la shaqeyso midowga Afrika si loo hubiyo in guul laga soo hooyo xiriirka labada dhinac ee la xiriira dhammaan dhinacyada kala duwan, ayuu yiri madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo oo khudbadiisa sii wato ayaa waxaa sidoo kaleeto uu ku soo qaatay ayaa ugu baaqay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay madaxda ka soo qayb gashay madashan iyo maalgashadayaasha caalamka ee goobta joogay in ay soo booqdaan Soomaaliya si ay u soo arkaan horumarka ay ku talaabsadeen shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. Run ahaantii Soomaaliya waxa ay caalamka intiisa kale masraxa kaga degtay 1990 kadib markii dalka uu burburay, laakiin shacabka Soomaaliyeed ee aanan ka quursanin dhibaatooyinkii kala duwanaa dalka uu soo maray ayaa u istaagay in ay dib ugu soo laabtaan caalamka intiisa kale. Soomaaliya hay'ado fara badan oo ka kala maqnaa ayay dib ugu biirtay tan iyo 1990 ayaa hadaldiis ka mid ahaa. Soo qiimeynta uu ugu baaqay fursadaha maalgashi ee kheyraadka uu alla ku maneystay dalkeena, ayuu madaxweyne Farmaajo ugu baaqay. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ugu mahadceliyay dhigiisa dalkaasi Ruushka mudane Vladimir Putin, xukuumadda iyo guud ahaan shacabka dalkaasi soo dhaweyntii diiran iyo martiqaadka sare ee ay ku qaabileen isaga iyo wafdigiisa, ayaa ku dhawaaqay in Soomaaliya ay soo dhaweynayso qodobada wax ku oolka ah ee ka soo baxay madasha shirkani. guud ahaan daawadayaal, halkaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii koobnaa ee aynu kusoo qaadanay shirweynihii u dhexeeyay Russia iyo wadanka iyo qaaradda Afrika ee ka socday magaalada Sochi ee wadankaasi Russia. halkan ayaan kusoo gabagabaynaynaa, waan idinkaga mahadcelinaynaa daawashada barnaamijkan aan halkan idinkugu soo gudbino had iyo jeeraale. waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe na siisaan oo aad noo sii share gareysaan. waxaan filayaa inaad ka ogaateen macluumaad fara badan oo aad la wadaagi doontaan asxaabtiina. marka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Geele. tan iyo ismaqal dambe oo xiis leh waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo amaana Allah.